بسم الله الرحمن الرحيم أنا غيره عبد الله إسماعيل فارح oo u dhashay gobolka Sanaag Ergaabo kana ala meesha la yiraahdo Booca oo deegaan aan ku leeyahay waxa ii yimi inamadii dhirta iyo daaqa wasaaradda deegaanka waxay yiraahdeen shabeel baa disheen oo lagu dilay meesha la yiraahdo Booca shabeel anagu uma dilin waxan harim cad buu ahaa waana dhibay arigii buu naga laastay daalinka inaad iska qabato xaq weeye mar hadduu wuxuu daalin yahay intaa duurjoogtu waa nala joogtaa deeradii baa nala joogta dhurwaagii baa nala jooga xawayaankii oo dhan baa nala jooga ma dhibno balalkay naga cunaan oo deeradu balalkii waa naga laastay warafkaa kaga saara baan midhahnaa eriya kow bahal daalina ayaa ilaa kal hore noo yimi anigu haram cad baan waxaan u dilaynay haddaanu haram cad u dilay carruura yaryar oo dhalinyaro ah baa yidhi waa sawirayna waxbaha sawirayna iska daay gambaha sawirayna maxaa ka sawiraysa waa haram cadnimadii waxa weeye markaa haram cadnimaan u dilay waxay ina leeyihiin inamadii ii yimi sawirkiisii baan dhahaynaa shabeel buu noqday aniguna waxaan u haystaa haram cadkii wixii markaa waa tuuray ilaa inamada waaba tusi lahaa 20 dhur waaba kala goostay habeenkii day haragiisii dhibis uuna dhibay ayaana ku dilo xooli naga cunay inta waxaa raacda wacyigelinta waxaan leeyahay wixii dambo la ilaaliyo oo xawayaanka duurjoogta la ilaaliyo oo laga ilaaliyo khasaare aan la gaarsiin baan leeyahay wixii aan maqlinna loo sheego oo lasii gaarsiiyo intaa ayaan kaga tegayaa maanta waxaan ku sugannahay deegaanka Boocada oo ka tirsan degmada Ergaabo gobolka Sanaag oo runtii wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada waaxda duurjoogta ka wada wacyigelin ku saabsan ilaalinta duurjoogta halkan deegaankan aanu joogno lagu dilay shabeel waxaan dadkii deegaanka iyo odayaashii isla garanay in waxa weeye duurjoogta la ilaaliyo wixii la dhibaateeyo aan dhibaato duurjoogta loo geysanin runtii wacyigelintaanu siinayna way soo dhaweeyeen bulshada deegaanka waxaan ku wacyigelinaynaa in duurjoogta duurkeeda lagu ilaaliyo wixii dhibaato u geystana laamaha waxa weeye ammaanka iyo wasaaradda deegaanka gobolka la soo socodsiiyo runtii shabeelka halkan lagu dilay waxay dadka deegaanku nala wadaageen in waxa weeye xoolo badan ka cunay waxa weeye dhibaatooyin badan u geystay marka iyaguna markii dambe waxa weeye dileen marka runtii ka wasaarad ahaan iyo ka gobolkuba iyo ka jawaabaya waxa weeye waxay wacyigelin ugu yimaadeen deegaankii sidii loo ilaalin lahaa duurjoogta sidii wixii mayeedhaana ayaan dhibaato u geysan waxa weeye duurkooda loogu ilaalin lahaa bulshada Soomaaliland waxaan u sheegayaa meel walay joogaan iyo gobol walay joogaanba duurjoogtu waxay ka mid tahay khayraadka Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ina siiyay duurjoogtu dal waliba wuxuu ku faanaa wixii duurjoogu leeyahay runtii muddooyinka ugu dambeeyna wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada waxay waday dadaalo badan oo lagu ilaalinayo duurjoogta bulshada lagu wacyigelinayo marka runtii waxaan ku wacyigelinaynaa in waxa weeye duurjoogta duurkeeda lagu ilaaliyo